marxim waxaan isleeyahay arintan dhacday hadaan soo koobo sida warqada dhinaca Kenya ka soo baxay iyo qoraaladeeda iyo falalka ay sheegaysaba ay tilmaamayaan in arintani ay salka ku hayso maalin dhaweyd bandhigii dawladda Soomaaliya ee wasaaradda batroolka ay ka samaysay London iyo waxay ku andacoonaysaa in qaybo kamid ah blockiskii la bandhigayay ee shirkadaha caalamiga loo bandhigayay qaybo kamid ah inay ku jiraan meeshii muranka uu ka taagnaa marin badeedkii overlapka oo yaani uu muranka ka taagnaa inuu ku jiraan marka waxay leeyihiin dawladda bishii 6deeda waa la xiriirnay duruufo badan ma taqaanaa lama soo jawaabin sidii la rabay inuu lagama taqayn marka adiga andacoonsho ay ku andacoonayaan ayay arintan ku sheegeen laakiin haddii aad fiiriso oo talaabooyinka ay qaadeen iyo cabasho ay ka muujinayaan arinkaas ismalaha sababtoo ah arinta waxa ay qaadeen talaabadii koowaad in safiirkooda ay u yeeraan oo si ay ula tashadaan waa la gartay waa qaybta ugu hooseeya laakiin safiirka kalena ay yiraahdaan Soomaaliya degdeg inuu ku baxo weeye iyadan waa talaabo kale oo ka culus marka waxaan isleeyahay ujeedada salka ku hayso waxa waaye in ay kor u qaadaan muujiyaan muranka galka kala dhaxeeya Soomaaliya ee muran xuduudeedka ka dhaxeeya ayay rabaan in ay wadamada dariska iyo caalamka ay mar labaad ku baraarujiyaan goobta la isku hayo meesha la soo halqaday shidaalka eragan laamu eeriyadeeda ay aad deerada u saaran tahay Soomaaliya hadii meesha maxkamadda jirtay ahayd maxay ugu soo darsatay bandhigeeda maysan ahayn in maadaama dacwo ka socotay fursad siiso يعني iyaga waxa weeye kolka mar hore shidaal iyo waxyaalo inay ka baaraan la rabay dacwo laga bilaabay laga joojiyay iyaga waxa ku filan ama ma taqaana meesha cabashan ka qabnaa laga saaro iyo in laga wada hadlo laakiin aniga yani qoyn ahaan waxaan isleeyahay waxa ay si xoog leh mararka qaarkood talaabada ay qaadayso waxa ay u weyneynaysaa in arintan dawladaha dariska igadka dawladihii inay ku baraarujiso caalamka muran xuduudeedkaas inuu jiro oo ka dhaxeeyo muujin oo yaani sida liraa toosku ifin weyn ayay uga danayeen barsoore maxkamadana socota yaani waxay leeyihiin malafkaas maxkamadda hadda iyaga ayaa yaani socotay iyaga laga rabaa daliilo laga rabaa marka waxay rabaan galka inay geliyaan murankan waa kana waa jiraan dawladda iyadan waxay ku xadgudbaysaa meesha arinta inay xoojiso oo tooshka ay ku ifiso ayay mataqaana ujeedada ugu weyn ay tahay taa waa ujeedada marka xaqi dawladda laga rabaa marka talaabadii qaadile وأفرنا ودوين كلا دولة كينيا إن يجلس سفير كذا لكن الصومالي صادرته إنك استيلا هاي خارجات سمينا جابس موين ودوين كلا مجرى ودوين كلا وحاء لابا إن الإنسان سكوت دارين سفير كودا مركز ويرتو وحالا بها إن وتلاوين في الدبلوماسي وجوه الرأي وأرن مركز كعبان يسو إن الله تشطه Soomaaliya waa dhici kartaa safiirkeeda inay u yeerto in jawaabaha la iska sugo oo qadiyadan la sameeyo sababtoo ah qadiyadan hadda London ka dhacday ma ahayn wax la iibiyay ma ahayn wax process waxay ahayd kaliya bandhig la soo bandhigay maadaama la soo bandhigay wax badan baa laga hadli karaa laakiin arintan tooshku ifinta weynta ay wado iyo isxanaajintan weynka ay wado marka ujeedada ayay kala hayd maxaa la yiraahdaa oo u dhaxaya ana marka waxay la tahay xaqii dawladda Soomaaliya iyadana laba dariiq ayaa u banaan arintii in ay maadaama ay aad kor ugu qaaday talaabadayna inay kor u qaadana way u banaan tahay inay arinta dejisana way u banaan tahay aniga waxa ila haboon hadii iyada ficilkaas hadii radul ficil xoog badan dawladda Soomaaliya uga jawaabto waa wax dhici kara oo ay leedahay laakiin waxa haboon qadiyadan in ay iyadu maadaama ay rabto inay toosh xoog leh inay ku ufiso inay u baahan tahay si diblomaatiga in looga sameeyo sababtoo waxa weeye wixii muran ku jira oo xuduudda badda ah ku jira ka waxa weeye waa ilaa maxkamadii ay soo kala saarto way ay noqonaysaa si caadi ah loo
looga wada hadli karaa laakiin arintan xoojinteeda waxay u baahan tahay in si diblomaasi ah loo markaad fiiriso khilaafka dawladaha Soomaaliya maxay khibrad ka baratay arintii Canada Sweden iyo Sacuudiga Turkiga iyo arintii la xariirtay maaragtay Sacuudiga hadda Kenya taagantay Djibouti xurguf baa jirtay ma moodaa siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya ma hawlin ka baratay labadii sano runtan waxay la tahay tan oo arrimaha dibadda Soomaaliya kulli waxa waa mas'uuliyiinteeda laga wareysan karaa laakiin anigu waxa isleeyahay midaan hadda oo Kenya iyada dhinaceeda ayaa waxay wadaa arinta tasciidin ama kor u qaadis oo xoog badan ayaa ku jira marka waxay u baahan tahay si xikmadaysan inay dawladda ula dhaqanto hadii maanta xiriirka xumaado labada dal Kenya ayaa nugul markaad fiiriso لأنه وحي اسكو دايسا حاجة نقطة sababtuna waxaan oran karaa xagga Soomaaliya iyaga waxa ka dhaxay waxa jira ganacsi weyn oo Soomaalida ay jiraan hadda ganacsigii intiisa badan dad badan way ka gudbeen oo meelo kale ay u gudbeen xiriirku marka haduu si xumaado economically iyagu waxa ay gaaraysaa arin aanan mataqaana iyaga aan u fiicnayn oo kale ayuu noqonayaa xagga security-ka naftooda waxay isku dayayeen mar inay darbi ay sameeyaan ay isku dayayeen darbigaas in ay sameeyaan tiina way darbigaas sameyntii way joogsatay uu ka joogsaday arrimo amni ah marka wada shaqayn amni ah oo la ilaaliyo waxa ugu jirta faa'iido weyn ba Kenya ugu jirta marka hadii laga fiiriyo marka geeska Afrika iyo isku furaantiisa iyo mustaqbalka waxa la rajaynayo